wacan daawade halkan waa channelka halgan media ku soo dhawaada daawadayaal warbixin gaar ah oo aan kaga hadlayno bilowga dhamaadka madaxweyne Farmaajo iyo xaaladaha guud ee dalkan Soomaaliya iyo sabaha hortaagan magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkan daawade haddii aad ugu cusub tahay subscribe riix gambalelka saadoo wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka aynu ku bilaabnay burburkii ugu weynaa ee dal Soomaaliya ayaa soo socda iyadoo ay xawli dheer ku socoto kala orod lagu raadinayo booska ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkan dadka ku tartamaya siyaasadda ay bilaabeen in waqtiga u dhiman xukuumadda maanta jirta ay yar tahay muddo 6 bilood ahna ka yar tahay balaan qiyaasno waxa dhici kara marka ra'iisul wasaare cusub la magacaabo waxa bilaabanaya kala orod la tartamayo xilalka wasiirada tartanka dhexdiisa ay dawladda Farmaajo waqtigeeda ku egyahay tartankii xilalka wasaaradaha loo la koobiyay xooggan yahay ayaa la weyn doonaa meel wax loo wado iyo cid dalkan xukumi doonta mar haddii wixii dhisnaa ay dumeen dawladdiina ay meesha ka maqan tahay madaxweynaha waqtigiisu wuxuu ku ogyahay inta sanadkan ka dhiman xagee dawladda la onki karaa haddii xukuumaddii fulinta oo dhanba ay dhaceen dalkiina dawladaan yahay waa su'aasha ugu badan ee isweydiinayo marka waqtiga dawladdan uu dhamaado haddaba waxa meesha ka muuqda waa jahwareer aysan dadku dareemaynin waayo waxaan ku sifownay ummad aan u jeedin qaladka ay dawladda ku jirto kadib markii uu madaxweyne Farmaajo magacaabay ra'iisul wasaare ku meel gaar ah waxa halkan ku kulmay sharci darro lagu riday ra'iisul wasaare Khayre oo tallaabo ka baxsan dastuurka ku meel gaarka ah iyo waliba ka daro dibidal kadib markii la magacaabay si haye ay ciidana garanayeen sharciga loo cuskaday waxa dhabowday haysi ahayd laba miira la yimooda waa la igu maantada kadib markii siyaasiyiin dalka ugu culays ka badnay ay ogolaadeen wixii dhacay iyagoo sharciyeeyay kadib markii ay doonteen in jagada ra'iisul wasaaraha la siiyo jifooyinka tartamaya midkood waa qalad ku sax waana sababta adduunka oo dhan aan ka noqonay dad lagu maadeysto fashil iyo wixii xunba loo nisbeeyo haddaba sidee dalkan looga badbaadin karaa burburka soo socda calaamadaha lagu garto diktatorka waxa kamid ah inuu iska indhatirayo sharciyada dalka u degsan oo qaarkood lagu dhaqmay iyo kuwa ku meel gaarka ah oo xadeeya awoodda madaxda dalka ka talisa haddaba waxa iga tala ah in laga hortago xeeladaha uu adeegsanayo madaxweyne Farmaajo ee ku saleysan sidii uu jagada ku haysan lahaa sanooyin badan sida uu jecel yahay waxa hubaal ah inuu adeegsan doono xeelad kasta oo ku xaqiijin karo hamigiisa kuna saleysan mutakarorsiga ugu dambeyn meelaha ay arrimihiisu ka fuli karaan oo uu ku saleynayo waa baarlamaanka koox raqiis u ah oo meesha uu joogo in ay ka qaraataan doonaya iyadoo aysan jirin wax mabda ah ay kula soo kici karaan xalaal iyo xaraan qaarkoodna iyagoo og ay u bareereen qaladka dawladda jirto waxay rabaan waa in afka loo buuxiyo kaliya haddaba madaxdii sharafta lahayd ee halkan soo gaarsiiyay dalkan waxaan weydiisanaynaa in iyaga oo kaashanaya madasha xisbiyada qaran iyo madaxda asxaabta kale ee dalkan ay ka hortagaan lana joojiyo magacaabida ra'iisul wasaare cusub oo arrimaha la damacsan yahay iyo rajada isbedelka ee la sugayo ku ridi doona buhul aan laga soo bixi karin haddaba qoraaga warbixintan waxa uu sidoo kale uu leeyahay marxaladda guud ee dalkan waxa ay saameyn ku yeelan kartaa siyaasadda guud ee dalkan arrimihii dhinacafinta ee Soomaaliya la doonayay in deynta looga cafiyo iyo sidoo kale isafgarad dhexmara dowlad goboleedyada iyo sidoo kale dowladda federaalka waxa kale oo yiri qoraaga qoray sheekadan sidoo kale waxa dib u dhici kara shirki uu Samareeb 3 ee lagu balansanaa 15 Agosto ka sanadkii kaliya 4 cisho wili waxa shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan siyaasiyiinta indhaha ay ku hayaan shakhsiga cusub ee la rabo ra'iisul wasaaraha dalka iyadoo sidoo kale soo tarayaan mas'uuliyiinta u sharaxan xilka ra'iisul wasaarenimo siyaasiyiin hadda xilka iyo xukuumadda dhacday ayaa qayb kamid ah waxa laga xusi karaa wasiir ganacsiga ee Soomaaliya Cabdullaahi Cali Xasan oo doonaya inuu qabto jagada ra'iisul wasaarenimo ee dalkan Soomaaliya sidoo kale waxa jira siyaasiyiin rugcadaaya oo dalkan soo maray doonayaan inay ku fariistaan kursiga ra'iisul wasaarenimo ee dalkan Soomaaliya waxa jira musharax madaxweyne soo noqday oo loogu yeeray inuu noqdo ra'iisul wasaare hadda waa kay musharaxaasi laba jeer ayuu soo noqday musharax madaxweynaha Soomaaliya waa Cabdullaahi Axmed Cadow oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaalida ee qurbo joogta ah waxa uu ambassador Cadow sheegay in taariikhda dalkan wax badan laga soo maray heerka maanta la soo gaaray arinta magacaabida ra'iisul wasaaraha cusub ee sayra tahay maruu soo hadal qaaday waxa uu sheegay xulashada dawladda iyadoo taalo
muddo kororsi inay timaado ayuu sheegay inaysan wax micnaha ku fadhin iyadoo la raadinayo heshiis nabadeed. markaad fiiriso hadallada siyaasigan iyo ereyada uu bixinayo iyo sida uu taageersan yahay xukuumadda Farmaajo waxay u muuqataa inuu doonayo kursiga ra'iisul wasaare waana sababta xog badan aynu helnay ku cadeynayso in siyaasigan loogu yeeray dalkan gaar ahaan fil Soomaaliya inuu soo gaaro sida ugu dhaqsiyaha badan si loogu magacaabo xilka ra'iisul wasaaraha dalkan Soomaaliya. ma cadda in Cabdullaahi Axmed Cabdow uu noqonayo ra'iisul wasaaraha dalkan hase yeeshee waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta ugu cadcad ee loolankan ku soo biiraysa. haddaba markan aynu eegno wararkii ugu dambeeyay magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkan iyo shaqooyinka waaweyn ee hor yaalla iyadoo sidoo kale hardan iyo xulafaysiba loogu jiro xilka ra'iisul wasaaraha iyo beesha qaadan lahayd. madaxweynaha dalkan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa laga yaabaa in saacadaha soo socda si rasmi ah uu magacaabo ra'iisul wasaaraha cusub ee bedeli doona ra'iisul wasaarihii lama filaan ku baxay Xasan Cali Khayre. sida aan wararka ku helayno madaxweyne Farmaajo ayaa soo gabagabeeyay inta badan wada tashiyo uu la sameeyay la taliyaashiisa oo ku aadanaa shakhsiga ku haboon ee xilligan loo magacaabi karo xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. madaxweynaha iyo xubnaha guddiga ayaa xog wareysi la yeeshay shakhsiyaad dhowr ah oo doonaya inay qabtaan xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo kuwa iyagu la jeclaatay madaxtooyada. wararkan aan helayno ayaana sheegay in madaxweynaha iyo kooxda ku geedaaman ay kala shaqeynayaan musharaxiin badan oo isku soo taagay qabashada xilka ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya waxaana isku soo haray shakhsiyaad kooban oo midkood la filayo in madaxtooyada soo xulato si uu u noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ee hogaamin doona muddo xileedka dawladda u harsan iyo haddii ay hirgasho damaca fil Soomaaliya ee muddo kororsiga. musharaxiinta u soo istaagay xilka qabashada ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa la sheegay in lagu xirayay shuruudo badan oo qaarkood diideen oo kuwa kalena ay ogolaadeen shuruudahaasi. shuruudaha ayaana waxaa la sheegay inay ka mid ahaayeen in qofka qabanaya xilka ra'iisul wasaaraha uusan soo gelin damaca qabashada xilka madaxweynaha in uu raali ka yahay muddo kororsiga iyo inuu qayb ka noqdo xisbiga nabad iyo nolol. waxaa weli adag in farta lagu fiiqo qofka uu ugu dambeyn Farmaajo u xulan doono qabashada xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxaana aad loo hadal hayaa shakhsiyaad caan ah oo dawladda hore uga tirsanaa in midkood xilkan loo magacaabi doono. sidoo kale siyaasiyiinta iyo xisbiyada mucaaradka ayaa ka talinaya in la magacaabin ra'iisul wasaare ka shaqeyn kara muddo kororsi dawladda Farmaajo ay doonayso. haddaba maxay tahay shaqooyinka weyn ee hor yaalla ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkan Soomaaliya? inta badan siyaasiyiinta ayaa aaminsan in ra'iisul wasaaraha cusub aysan hor olin wax shaqo weyn aan ka ahayn inuu ka shaqeeyo kaliya arrimaha doorashooyinka ee dalkan iyadoo taasi aysan dhici karin maadaama hadda madaxweyne Farmaajo uu soo xiray irid kasta oo u furan oo ahayd in ra'iisul wasaaraha kale uu ka shaqeyn karo arrimaha doorashooyinka iyo inta doorashooyinka dalkan Soomaaliya. sidoo kale waxaa jira sharciyan saxiixan xukuumadda ku-meelgaarka ah oo aan wax shaqo uga furnayn ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkan iyo sidoo kale guddigii Dhuusamareeb loo xilsaaray ka shaqeynta arrimaha doorashooyinka sida ku dhici karaan oo wax kale uusan ku yeelan doonin ra'iisul wasaaraha cusub ee la magacaabi doono. arrintan ayaa waxaa guraanteedu uu yahay bilowga dhammaadka madaxweyne Farmaajo iyo haadaanta uu ka sii dhacayo hamiga siyaasadda ee dalkan Soomaaliya. guud ahaan daawadeen wanaga inta warbixintii gaarka ahayd aan kaga hadlaynay marxaladda guud ee dalkan Soomaaliya iyo bilowga dhammaadka madaxweyne Farmaajo iyo dadaalka dalkan loogu jiro in siyaasadiisu ay sii hanaqaado. haddaba daawadeen warbixintan iyo sidoo kale taan ugu reeb fikirka qaybta hoose ee commentiska iyo kulan dambe nabadgelyo.